raganimoy ragaagii nacasnimo maxaabaday raganimoy ragaagii nacasnimo maxaabaday ninka garka iska xiiraya ma dhow aniga haatan garkii wuxuu noqday mid malaawaal iyo malaayacni ragga uga soo baxa awalse kuwa garashada iyo garta kuwa caniga gogasha haweeniyo waxay gobmudan tahay yaqaan ayuu kasoo bixi jiray qisaan idinka sheekeynaya intaanan guda gelin barnaamijkeena caawa nin dukaan la oo dukaanka macnihiisa iyo qaabka loo xaraashsaga yaqaan ayaa nin kaleeto dukaan la ahi dukaan ka ag furtay dabeeto ninka dukaanka ka ag furtay dhaqaale eebbahay waa u dhiibay iyo wixii dukaanka lagu maalgelin lahaa hase ahaatee waxyeelada iyo waxa la isdheeryahay qaabka wax loo xayeysiiyey haddaba labadii dukaan way isku dhinac yaallaan dukaanlihii hore mooye kii dambe rag usoo gala mooye haweenba uma soo galaan hase ahaatee kii hore dukaanka hore lahaa haween mid la qaba iyo mid yar iyo mid weyn gabar gashaantiya nooc walbaa soo gala wuu yaabay oo wuxuu yidhi warheedhe dukaankaaga kan waa kan sixir bararka ku dhacay oo waxba aad ka dheefilaadahay oo aanan dhaqaaqayn kareenkuu keeno raqiis baad ku daydaa cidi kaama iibsato xaggee bay wax ka khaldan yihiin kareemo kaleetoo qaaliyuu keenay cadaro qaaliyuu keenay barafunno qaaliyuu keenay mise cid u dhaqaaqda male maalintii dambe wuxuu yidhi sida tan carruurta biilkooda ku keeni maysee bal ninka kan tala weydiiso ninkii dukaankiisu uu kacsanaa oo ay dadku ay wax ka wada gadanayeen ayuu su-aal weydiiyey oo ku yidhi walaalow eebbahay jannadii ha ku geeye khayrna ha ku siiye risiqaagana ha kuu barakeeya aan ku su-aala su-aal markaasuu yidhi haaya jawaab wuxuu ku yidhi walaalow dukaanka kan in muddo ahba waan haystay hase ahaatee dadkao dhan aday kuu yimaadaan dhashii iyo dhallaankii waxaan ku biilana ma haysto ee khayr alla siiyo ilaahay ha ku barakeeye xeeladda ay bar ma intaasoo qura buu ku yidhi haa buu ku yidhi haddaba anaa ku barayee nus saac ama 30 daqiiqo ila joog dabeeto 30 daqiiqo ayaa uu meeshii soo ag fadhiistay ninkii idaawuu ku yidhi oo dadkaas sidaan wax uga gado fiirso oo halkaasay daawo kugu noqotaay hadhowdiina adiga dukaankaaga sidaa wax looga gataa dabeeto maxaa dhacay ninkii dukaanka lahaa ee wax barayay ninka kan kaleeto ayaa waxa u soo galay gabadhii kolka usoo gashay ayaa waxay ku tiri waxaan doonayaa malab kolkaasuu wuxuu ku yidhi ma adigoo malab ah ayaad malab doonaysaa buu yidhi malabka kan waa kuu bilaash kanna waa kaad iibsatay ee labadaba guddo ninkii buu fiiriyey yidhi ma ila socotaa haa fariid buu yidhi halkaa igalahay waxa yar kadib haddana gabar kala soo gashay kolkaasay ku tiri walaal tufaax isi markaasuu yidhi yaa salaam ma adigoo tufaax doonaya buu yidhi laba tufaax ahoo midna waa lacagtaad ku iibsatay midna waa kuu bilaash ninkii buu eego yidhi xaaladda soo dhag ma aha oo ilama socoto haa buu yidhi macalin ha haddaba gabadhii kolkay iibsatay tufaaxii ay tagtay ayuu ninkii ku yidhi waa markaagii bal waxaad baratay tus wax yar kadib gabar kala soo gashay kolkaasay ninkii wax la barayay ku tiri walaal caanaysi kolkaasuu ku yidhi walaal macaanaad doonaysaa buu yidhi adigaaba ah lo-dii caanaha laga sameynayay maxaa xigay intaa iyo dharbaaxo dhaban iyo daankii guduudisay iyo durbadiiba ninkii iyo dukaankii laga eriyey haatan ujeedkii iyo hadalka waxaan ku keenay sheekada bal waatan ila daawad سؤال ما أنت مع إذن كان فرحة بوجود أبو كلفوت دارت الليلة وحق إذن كان انتميت كيا وأهبال وقضى حدود الترنكة قليلة كده وتقول عرف بدن وكان حاجة والله بالله وطلع إنه سناق لما تقول كل سنة نفات باشان وحال وسينا جرانتيو تجابدي كواد وامرتي قبل كاميرا إنه يسوي دينا أبا سود وهي باشان كور محاك ورد ما شاء الله باشان وحنقارك بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد يجي بالهان سومالوين مال بدرو ذا كجوكتان ابونا وحنا كرجاني قد جاني يجي بالهان تين بعافمات دي عبادة صوبانية عمل خير كان حنوسن ابها وحنا قبل ينو عافمات تامسيو كان مراد كلهنا يا الله وحنا كرجاني ينو مراد كي سمت خير كدغو كان غيريودان انو جنادي ودغونيد هوي كدغو كان لغا غيريودنا وسمري ايمان كسيا لما هوران dalkeeni iyo dadkeena midooba waa lama horaane iyo dalkeena oo nabad ayaan ee bayno weydiinaya hadaba si aan barnaamijkeena u guda galno waa mid wax lama horaan ee mahadi wata labaad bulshada ay ugu xiranayay daawata ee dhiirigelisa mar walba samaha iyo tilmaamaha qurxoon aan ka hadlay ugu dhiirigelisa wad mahadsantihiin kuwa cusubna waxaan leeyahay subscribe dhaha khayrka aan wada faafinay dhiirigelin been anaga noo tahay samaha tilmaamayna hadaba waxaan ka hadlayaa caawa barnaamijka beenaalihii ka been sheegay guurka ee bahayna waxa weeye tilmaamihiisii khayrka ahaa iyo beenta mamnuuca caadi iyo camal ka dhigtay
hase ahaatee inta aanan barnaamijka guda gelin bal faallaha iyo fiirooyinka ninankan iyo aragtidiisa wax yaraynu daawo dadkii ugu dhalay in aan arrinkan sameeyo waxay ahayd maxaa la yiraahdaa maadaama aan aniga iyo gabdhaha aan asxaab isku dhow ama dad walaala oo xiriir fiican ka dhaxay aananay aan waxaan ku wada balana waxay tahay in aan waxa way aan bulshadii aan wax cusub loo hor imaano marka maadaama aan si fiican maskaxdeena tugu jiray aan fikirno waxa noo soo baxay in aan arrinkan ku dhaqaaqno si aan anagana waxa way hadal hees badan uga dhalato oo waxa way nugula mashquulo garaad laawaha garashada liita wuxuu inoo tilmaamay oo sheegay waxa kan inay ka ahaayeen idhayo ogeysiis iyo bulshadu hay barato hase ahaatee beentaada hore waxay u daran tahay runtaada dambe wax maamaha hore macna xambaarsan haddaba kaliya godob naftiisa kama gelin ee wuxuu godob ka galay allaha weyn oo diinteenna waa mamnuuc iyo waxaan mudnayn marnaba in la magaranaysa ay macaansado aan bulshada loo sheego been watan labaad oo godob wuxuu ka galay gabdhaha Soomaaliyeed oo wuxuu uga galay gabdhaha kan waa gashaanti guur sugaya dad baana tacbay oo dhalay tilmaam iyo tusaale inay u noqdaan iyo darajo ay hoodaanna hubaal ka sugay watan kale isaga dad baa tacab iyo dareen geliyay oo waalid u ah oo 9 bilood camal khayr iyo waxa weeye uu ugu siday si uu u noqon lahaa mid ay baraarey bashbash iyo bulshada faa'iido uga faa'iidaan inta kuwa akaane wuxuu yiri inay hablaha kanu yihiin walaaladiis ama asxaabiis ugu dhow yihiin diinta tilmaamaysa nin iyo naag inay saaxiibaan horta waa diinta diin islaam ma aha gabadha muxram nin u ah bay la saaxiibi kartaa wehel iyo walaalna ay ka dhigan kartaa waa mid la dhashay waa mid ay dhashay waa mid qaba waa mid alwaadan beerka beelade ama ha ahaado mid gabadheeda qaba ama mid alwaadan beerka beeline aan weysa ka gadin oo waanadeeda dooni kara wadaac iyo waxuna ka ilaalin kara haddaba taa kaliya xaaladdu ma aha waxa kale oo cajiib ah habluhu inay tilmaameen oo ay sheegayaan inay doonayeen inay caan noqdaan tan waa tiri waxaana xaaskiisii koowaad oo tilmaantay gabdhaha kaleetana inay ka dameeyeen iyadoo sheegaysa YouTube-ka sidii bulshada uga baratay iyo sidii loo daawan lahaa inay aragtida u sameysay bal iyadana ila daawado waxay naga ahaayeen wax matalaad iyo waxa anaga YouTube-keena ugu talagalnay waxa anaga soo abaabulay qorshe markii hore anaga keensanay fikrad markii hore anaga keensanay in saddexaas matalno oo maaragtay la isla qabo waxa anaga gabdhaha walaalahay anaga fikrada keensanay oo YouTube-keena ugu talagalay YouTube-kii ma guri la isku guursaday iyo gabadh meel laga doonto noqday waxay tilmaamaysaa in YouTube-ka bulshada inay ka baratay ay doonayso meed hooyada may walaalkeed miyaysan rajadeeda iyo riyadeedu ahayn in geesi guursan doono gabaati laga dhiibi doono ayayse ooridiisa noqon hubaashi mid aan fariirsano fajac u taagan oo naxdin u dhinta ayay oori u noqon taas waa tanna waa gabar kaleeto oo iyaduna sheegaysa wax kan ii dhahiyo ogeysiis inay ka tahay tacabna ay u mareen sida bulshada been uga sheegi lahaayeen kana mid ah gabdhihii falka xun hubaashi u bareer يعني waxa anaga soo abaabulanay amsana aan isku soo raacnay laakiin midaas wax ma ka jirto Soomaha anaga waxaan gabdho walaalay hal qolna mooda seexano gurigeena anaga ma deganin xasi Cabdirashiid waa wiil walaalkeen maalintii oo yani wareysiga oo wiilasha inoo imaanayeen xitaa wallahi saa u muujin gurigan ina anaga aad deganahay maalintii oo dhan digsiga la raadina qaandad waa raadina cusbada macnaha digsi iyo cusbo wuxuu raadinaysaa sida bulsho been ugu sheegay hadaba YouTube-ka تيمي ديكسي كرادي لا آخره أياد أولو نقن وحاسكيس النقن وحكمت كاسوجي حتى وأنا ما يابين وكلي إنك أجريش دي سي جرات كيس اللي تكما يابين وحن لا يابي هوينا إذا تن صومالية دميد أنا هين يلا بقى أنا هين الصدق ذا أو بريرة بينتا هذا وضع عقب دقوردون وجيان كوتسوجي جرشوا ذو دسي دافع ويدي هوي أركو يداوضا هذا بقى bulshada Soomaaliyeed saameyn waxa ku yeelatay burburka mana nihin kuwa macnaha diinteena sharafta iyo karaamada leh iyo raacida nabigeena sunnihiisa Maxamed Kaleey salaatu wasalaam amal ka dhigta alaaba waxaan amal ka dhiganaa waxaan garashada iimaanka u wacnaan adduunyadana dib inoo ka dhigay arka oo idaawada hadaba Sheekh Mustafa Khayr Allah siiya ayaa waxa uu ka hadlayay mar bulshada Soomaaliyeed inay yihiin kuwa xumaha boonbooniya faalana ka bixiya halka ay khayrka tilmaami lahaayeen sida bulshada adduunyada iyagoo ay markasta tilmaamaan waxyaabaha dhaliisha iyo dhibta soo kordhinaya taasuna ay tahay waxa dibadda dhigay dheeftana u diiday mar uu erayada iyo erayo xigmad xambaarsan Allah ka raali noqday Sheekh Mustafa uu tilmaamayna hadaladiisii waxa kamid ahaa social media waxa laga soo afuufayo bal Soomaalidu
waa dad dhibtooda ay ka gedisantahay dadka kale. social media haddaad eegto dadka ugu badan ee la dhegaystaa waa intan waalan. ummad dadkeeda waalan dhegaysataa ma jirto, ha Soomaali ahayni. dad waalan oo lagu odhanayo wuu waalan yahay ayaa haddana wuxuu yahay dadka loogu dhegaysi badan yahay la dhegaysanayo. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa amni haddaynu rabno inaynu ilaahay raacno. kow inaynu caqiido saliima qabsanno xejisanno. laba inaynu alamru bilmacruufi wannahyu can ilmunkar samayno. saddex inaynu nimcadaynu haysanno markaasi ku shukri noqno. waytaadana haddaba bulshada Soomaaliyeed ee sharafta iyo karaamada leh waxaan ka codsanayaa inay caqligooda wanaagsan ka shaqaysiiyaan oo ay tirada sheekha qaataan, marna ay ka tigtoonaadaan sida ay uga fal bixin lahaayeen ficil fiican ugu arki lahaayeen dadka xumaha reeba iyo dadka aan bulshada faa'iidada iyo intifaaca ku soo kordhinay. dadka beenta badan darajadooduna ay tahay mid dulinimo maahay daryeel marnaba aan noo horseedi. haddaba waxa cajiib ah oo hubaashi ninka aragtidiisa iyo fikirkiisa kolkaan dhageystay fideogii ugu dambeeyay oo soo duubay aan ka sii yaabay inuu sheegay inuu yahay mid riyadiisu tahay inuu guursado 3 gabdhood. ayaa ii sheegay in riyooyinkiisa ay ka mid ahaayeen mar in uu noqdo 3 xaas leh, ha yeeshee aysan weli u suuro gelin, laakiin uu qorsheynayo. haddaba waan isweydiiyey waxaan idhi 3 gabdhood oo imika uu tilmaansaday beenta uu ka sheegay bannaankan uu soo dhigay dhaqankii xaggee aaday. dhaqanka Soomaaliyeed ee sharafta iyo karaamada leh ee lama huraanka ah tilmaamihiisa waxaa ka mid ah dhaqannadaas oo kale marka la arko ninka in xaal qabto oo la xakumo xaalkiisa maxaa helay. ninkaas ka been sheegay gabdho gayaankiisa inuu qabo, ninkaa ka been sheegay gabdho reer dhaleen ay soo tacab geliyeen inuu ka been sheego oo reerkoodii ankiro, ninkaa ka been sheegay diinteennii iyo guurkeenna iyo sharaftii lagu tilmaansan jiray, ninkaa ka been sheegay dhaqankeennii wacnaa ee haddana ku sii indhaadagay inuu 3 gabdhood oo kale riyadiisu ay tahay inuu guursado. aragti ahaan waxaan qabaa haddii xaal jiro ha lagu xakumo gabdhaha inuu guursado. dee cidi guursamaysi sababtoo ah karaamadoodii buu dilay, sharafkoodii buu dilay, waalidkoodu ceebeeyey, haddana riyadiisu waa inuu 3 kale guursado. macnaha 3daa wuu xumeeyo darajadoodii buu dilay, 3 kalena wuu hanqaltaagaya. ninkaas waa 6 laan oran karaano. ase ahaatee waxaan oran lahaa iska daa 3 mid laguma aamini karo, iska daa 2 mid laguma maamuusi karo, iska daa mide naftiisa waardiyo u baahan. ninka mashxarada iyo unsiga gadaya macnaha iyo maamuus dumar iyo waxay mudan yihiin ma yaqaan. ninka ragga ah wuxuu walaashii kala xishoodo waa inuu gabadha Soomaaliyeed kalena kala xishooda. waa hubaalo way dhashay oo dhib la'aan ayuu adduunka yimi, dheefna wuxuu ka helay hooyo Soomaaliyeed. haddii iyada hooyo Soomaaliyeed u garan waayay oo ku ixtiraami waayana dee gabar kaleeto u garan maayo. gabarna guurkeeda waxa doona mid garashadeeda iyo waxay hubaal mudan tahay yaqaano. barnaamijkan mid kaloo la mid ah intaan dib ugu kulmayno warsan iyo war khayr. asalaamu calaykum waraxmatullaahi